kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan waa saaxiibkiin maxamed abuukar baariyo oo idin leh kusoo dhawaada barnaamij gaar ah ee aan markaasi doonayo inaan ku faaqido barnaamijka sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan idinkugu faaqido dagaalka siyaasadeysan marna qabiileysan ee salka ku haya qabiil iyo siyaasad gooni u ah Soomaaliya dagaalkaas oo u dhaxeeya Puntland iyo weliba dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo laga dhigay nidaam qabiileysi ah. haddaba Puntland haddii aan kaga hadlo taariikhdeeda sida goonida ah lagu yaqaanaba dowlad kasta oo timaada Soomaaliya waa ay isku dayaan inay lugaha iyo majaha kaga dhagaan. maamul goboleedka Puntland ayaa in badan waxa markaasi isku dayay dowlad kasta oo timaada Soomaaliya inay majaha ka xaabiyaan ama ay yiraahdaan anagu ma raacsanin dowladda federaalka Soomaaliya xilligaasi jirto. waxay ka soo bilaabeen dowladdii Cabdiqaasim ee shirkii Cartay lagu soo doortay 1999kii dhamaadkii sanadkaasi ee 2000 uu madaxa soo galayay sanadka cusub. haddaba dowladdii Cabdiqaasim ma aysan la shaqeynin. sidoo kale Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa isna sidoo kale yimid magaalada Muqdisho ee markaa caasimadda magaalada Muqdisho madaxtooyada Soomaaliya ee fila Soomaaliya soo caga dhigtay. dowladda Puntland ama maamul goboleedka Puntland ayaa iyaduna markaasi waxay isku dayday inay sidii kuwii hore oo kaleento ay la dhaqanto walow ay isku haybahaayeen madaxweynaha waqtigaasi jooga. sidoo kale waxa ay isku dayeen dowladdii Sheekh Shariif Sheekh Axmed inay asna sidoo kale ay majada u xaawiyaan oo ay ku dhagaan oo ay yiraahdaan ma isdiraafsanin ama ma aanan aaminsanin dowladdaasi oo waa aan ka soo horjeednaa gabi ahaanna waa aanu qaadacnay. Sheekh Shariif wuxuu dhibaato fara badan ula maray sidoo ku qanci lahaa maamul goboleedka Puntland madaxdii xilligaasi joogtay. sidoo kale markii ay isku dayay waxa ay ku qasbeen in Garowe 1 iyo Garowe 2 shirar lagu qabto waxyaabo markaasi ayagu ay rabaan oo kaliya loogu saxiixo Puntland. haddaba Puntland markii aad fiiriso waa qabiil gooni u noqday in ayagu markaasi maamul sameystaan oo aan markaasina rabin in qabiil kale oo soo gudagalo oo Soomaalida ka soo jeeda. haddaba maxaa sababay in maamul goboleedka Puntland oo noqdo hal qabaa'il oo kaliya ee ka mid ah qabaa'ilada Soomaaliya maamul goboleedyada kalena ay yihiin kuwo markaasi mixed ah ama isku dhaf ah? waa sababta keentay oo in mar walbaba maamul goboleedka Puntland oo ka soo horjeesto dowlad kasta oo timaada Soomaaliya waxayna u arkaan xilligaasi inuu ay dowladdaasi ka shaqeynaynin danahooda gaarka ah. haddii ay ka dhaxweeyaan madaxtooyada Soomaaliya madaxweyne danahooda kaliya ka shaqeynayo oo Soomaalida inteeda kaleento dan iyo heela aan ka lahayn waxay markaas isku dayaan inay yiraahdaan waa ka soo horjeednaa oo gabi ahaanba waa ku qaadacnay. isla markiiba waa dareemaysaa qof walba Soomaaliya waxa ay dhegta ku haysaamay ogsoon tahay dowlad kastoo cusub ee markaasi la doorto Puntland goorme ay markaasi la diriri doontaa oo Puntland ay dhihi doontaa dowladdan anagu ma ictiraafsanin oo waa ka soo horjeednaa waxaynu nahay hooyadii federaalka Soomaaliya. haddii Puntland hooyadii federaalka Soomaaliya ay tahay waa kuma aabaha udub dhaxaadka u ah dowladda federaalka Soomaaliya? haddaba waa su'aal muhiim ah oo u baahan in la isweydiiyo ilaa qoysku sidiisaba haddii uu hooyo yeesho waa inuu yeeshaa aabbo iyo caruur. qoys aana aabbo iyo caruur aana lahayn hooyo ma noqon karto islaan oo kaliya. haddaba Puntland nidaamkeeda waxaa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud hadda iminkan isku haystaan ay tahay dagaal siyaasadeed oo Siciid Dani oo u bedelay dagaal qabiileed. haddaba wuxuu ka dhigay maamulka Jubbaland iyo weliba Puntland inay markaasi ka gooni ka noqdaan maadaama ay isku hayb yihiin Soomaalida dhankooda kala hal qabiil ilaa ay ka wada yihiin. waa dhibaatada ugu weyn ee Puntland marka Soomaalidu ay ku hayso ama ay Soomaalidu dowladda federaalka Soomaaliya u arkaan inay Puntland markaasi dhibaato ay ku hayso. yaa gar leh yaasa markaasi saxan yaasana qaldan. su'aashan waa midda kaliya ee dhammaan dadka kala sooci karta waana midda sababtay wariyaasha ka soo jeeda Puntland inay u hadlaan si caadifaysan oo qabiileysan ama ay markaasi kaga hadlaan dowladda federaalka Soomaaliya waxyaabo markaasi loo yaqaano ama CBB siday Soomaalidu u yaqaanaan ay uga hadlaan
nidaam ka soo horjeeda dowladda federaalk Soomaaliya waxay jecel yihiin wariyaasha ka soo jeeda reer Puntland inay mar waliba ay markaasi ay dacaayadeeyaan dowladda federaalk Soomaaliya daawade haddii aad nala soo gaartay ilaa dhamaadka barnaamijkeena fadlan follow inoo dheh page-ka siina share garay oo asxaab fara badan gaarsii sidoo kale YouTube-ka follow inoo subscribe garay oo share garay barnaamijyadeena si aad u noqoto saaxiibka koowaad ee ku xiran channelka iyo waliba barteena Facebook-ga mahadsanidin tan iyo inta dib ugu kulmi doono waa saaxiibkeen Maxamed Abuukar Baariyoodin leh salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh